wafdi uu hogaaminayay Suduha Wasaarada Caafimad ee gobolka Sanaag ayaa gaaray deegaanada xuduudka la leh Soomaaliland ee Bariga Sanaag waxaana wafdidan uu hogaaminayay Suduha ay u koorgaleen xaaladda caafimaadka iyo baahiyaha ka jira deegaanada Bariga fog ee gobolka Sanaag iyagoo wafdidan agaasimaha Wasaarada Caafimad ee gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed ay markii ay gaareen deegaanka Dhahar u koorgaleen isla markaasina soo indhaynayeen cisbitaalka weyn ee degmada Dhahar isagoo daawyooyin caafimaad ku wareejiyay cisbitaalka degmada Dhahar taasi oo baahi weyn loo qabay waxaana Suduha Wasaarada Caafimad ee gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed uu halkaasi tababar ugu qabtay shaqaalaha cisbitaalka degmada Dhahar tababarkaasi oo daarana sidii cudurka coronavirus looga baari lahaa dadka ka soo gala dhanka iyo Puntland isagoo halkaasi ku guddoonsiyay qalabka lagu baari doono cudurkaasi waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Dhahar iyo sidoo kale agaasimaha cisbitaalka degmada Dhahar oo Suduha Wasaarada Caafimad ee gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed uga mahadnaqay sida ay Wasaarada Caafimad ee gobolka Sanaag ula garab taagan tahay dadka deegaanadaasi waxaanu u mahadcelinaynaa Dr. Naasir iyo Wasaarada Caafimaadka Somaliland iyo tan gobolkaba iyagoo saaka noo keenay hadaan nahay degmada Dhahar daawo iyo tababar sida Suduhu sheegayo kulli ka tari doonta baahiyaha degmada Dhahar wax badan waxaanu nahay degma koona ah oo xuduudka Somaliland taal runtii baahiyo badan ka jiraan marka Suduhu waxaanu leenahay waa intaas oo aad nooga sii kordhisaan teeda kale cisbitaalku waa cisbitaal weyn kulli nusqan qarni uu ka badan yahay inta uu jiray ka badan waxaanu jecelahay hadba intii awood u leegtahay in cisbitaalka la kala saaro oo awalan marka ugu horeysa center TB-na loo dhiso annaga oo haysana dalkii insha Allah laga dhisi lahaa horey u diyaarsanay waxaanu rabnaa in center TB loo dhiso waxa kale oo ka sii muhiimsan cisbitaalku aanu lahayn inta leekii ambulance haddii qof xanuunsado oo ama meel lagu qaadayo ama magaalada dhexdeedaba qof ku xanuunsado wax ambulance ma leeyin insha Allah waxaan leenahay daawada iyo Suduha iyo tababarka aad noo sideena waanu ka gudoonay waana idinka mahad celinaynaa wixii dame oo insha Allah aad nala qaban kartaana waxaan rabnaa iyadoo sida baahiyo kala badan yihiin loo kala hormarinayo in insha Allah iyadana naloo ku dadaalo Suduhu oo ku mahadsan yahay waxay tahay dawooyinka uu noo keenay dawsaarku intuu leeyahay Suduhuna waa arkayo tan sheegay qatina waa ka yahay oo ambulance la ambulance inta la ka jirta gawaaridiisina talka wada fadhido gaarigu dameeyay halka waa kaas fadhiyo gaari la amba ka jirta wax bulshada loogu adeego iyo umada deegaanka wixii xanuunsada iyo wixii garanaysa dawsaarku u baahan yahay loogu shaqeeyo ma lahan TB centerkiina halkaas ku yaalay waa ka waxaan rabnaa wixii wasaaraddu ay naga caawin karto hadii Allah awood idmo inay hay'atay naga caawiyaan hadii Allah idmo ugu dambeynna waxa halkaasi ka hadlay Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed Suduha Wasaarada Caafimad ee gobolka Sanaag saako ay tahay 10 bishii 3aad 2020 anagoo ku sugan degmada Dhahar siiba cisbitaalka guud ee magaalada ujeedka safarkan ugu nimina waa kii caadiga ahaayaan dhammaan gobolka Sanaag qaybahiisa kala duwan aan ugu bixi jirnay baan ku tagi jirnay waxay makana sii tahay un dardargelin ah laba ujeedo oo inaanu geeyno qalab iyo kid caafimaad iyo inaanu shaqaalaha halka jooga maadaama ay xadka ama koonaha ay ku yaalaan in loo sameeyo tababar iyo wacyigelin ku saabsan xanuunkan loo yaqaan coronavirus dunida imaka inta badan meel badan ka jira ilaahayna haynaga hayo hadhowna iyagu ay marka meelaha laga soo galo oo aynu xadka ka leenahay Soomaaliya oo kale ama Puntland ba ay iyaguna hadii la ka dhigo ay tagaan oo ay ku shaqeeyaan aad baan ugu mahad celinaya sida fiican qiimaha leh ee noo soo dhaweeyay wixii baahiyaad ahaa waan qoranay waxaanay noqonaysaa sida ugu dhaqsaha badan la insha Allah billahi kariim goob kasta iyo meel kasta iyo cid kasta oo ka mas'uuliyiin hawshaas aan la galgalaysan karno in looga soo jawaabo insha Allah billahi kariim Barkad Maxamuud Gadi Bulsha TV wararka gobolka Sanaag